mar kale ayaynu dhuganaynaa qisooyinka naadirka ah ee warbaahintu ka diiwaan gelisay dagaalka dabada dheeraaday ee bariga Yurub kan u dhaxeeyay Ukraine iyo dalweynihii ay ka go'day ee Ruushka. dagaal haatan uu socdo mid ahaan wada hadallada lagu rajo weyn yahay in lagu soo afjaro kuwa oo uu miro dhalkoodu yahay in Ukraine isaga tanaasusho ku biirista gaashaanbuurta NATO. waa sida Ruushku doonayo iyo in Ukraine ka samirto qayb ahaan xuduudaheeda Ruushku qabsaday si ay Kiev intaas oo dhan nabad ugu bedelato. ku fogaan mayno wada hadallo nabadeedka natiijadooda la sugayo ee dhinacyadan u dhaxeeya. kolkan waxaynu dul joogsanaynaa door khaas ah oo ciidamada Kuuriyada Waqooyi ka qaateen dagaalka Ruushku kula jiro Ukraine, kuwa oo xitaa la sheegay in kaalin ku lahaanshahooda dagaalku sahashay in Ruushku dib u qabsado xuduudo ciidamada Ukraine horay u galeen. ciidamada Kuuriyada Waqooyi ee dagaalkan ka qayb galay oo tiradooda lagu sheegay in u dhaxaysa 10 ilaa 15 kun ayaa la wariyay in gobol macdaneedka Ruushku iska leeyahay ee Kursk ay galeen dabayaaqadii sanadkii hore, goortaas oo ay gaar ahaan magaalada Kursk magaceeda la yiraahdo ee xarunta u ah ismaamulkan ay gacanta ku hayeen ciidamada Ukraine oo dagaal ku qabsaday. waxaa lagu waramay in marka laga yimaado in ciidamadani xoojiyeen kuwa Ruushka ee dagaalka kula jiray ciidamada Ukraine in ay sidoo kale ahaayeen khubaro dhinaca engineering iyo istiraatiijiyadda dagaalka ah, isla markaana ay farsamo ahaan fududeeyeen in la wiiqo awoodii ciidanka Ukraine ee gobolkan ku sugnaa, taasoo ugu dambeyn sababtay in militariga Ukraine isaga cararo guud ahaan gobolkaas. guutadan ciidamada Kuuriyada Waqooyi ka mid ah oo magaceeda lagu sheegay 528 waxaa lagu waramay inay ka mid ahaayeen ilaa 6,000 oo askari oo injineero ah, waa in ku dhow kala bar tirada guud, kuwa oo naqshadeeyay istiraatiijiyadaha isu socodka ee dagaalka gobolkaas looga saaray ciidamada Ukraine. madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa maalin ka hor ciidankan ku soo dhaweeyay caasimadda Pyongyang kadib markii uu dhamaaday howlgalkooda gobolka Kursk oo haatan si buuxda Ruushku gacanta ugu wada dhigay qaybtood oo gaari curyaan lagu wado kadib dhaawacyada dagaalka ka soo gaaray. ilaa kuwa soo nabad noqday ayaa loo sameeyay soo dhaweyn sarreysa. mid ay warbaahintu hadal haysay ayaana ahayd hadalladii soo dhaweynta ciidankan ee Kim Jong-un oo uu sheegay askartiisu inay galbeed ka tuseen quwadda naadirka ah ee ciidamada Kuuriyada Waqooyi. waxa uu ku faanay inaan ciidamada Yurub oo uu ka wado kuwa Ukraine iyo xulufadooda aysan xitaa u babacdhigi karin guuto kooban oo ka mid ah militariga Kuuriyada Waqooyi. taasna ay cadayn ugu filan tahay waxa ay furimaha dagaalka ka dhigeen ciidankan tiro ahaan koobnaa balse si weyn uga dhex muuqday dagaalka Ruushku kula jiro Ukraine. Kim waxa uu yiri ciidamada taagta daran ee galbeedka oo ku hubaysan wixii ay doonaan oo hub casri ah waxa cadaatay inaysan wajihi karin ciidamadeena uu halgankooda asaaska u yahay kacdoonka nafsiga ah, kaas oo aan cidina karin inay u babacdhigto. waxa uu ku faanay in ciidamadiisu dhul hoog iyo halaag colaadeed ka oognaa u bedeleen carro nabdoon muddo aan 3 bilood ka badnayn, taasoo ka dhigan mucjiso aan cidina karin sida uu yiri. ogow Kuuriyada Waqooyi kaalinta 34 ayay uga jirtaa kala sarreynta quwadaha ciidan ee dunideena sida ay warisay Global Firepower sanadkan 2025. ha yeeshee waxaa la tilmaamaa in dalal badan oo kaalimaha sare ku jira dalkani kaga horeeyo dhinaca tirada ciidanka ama waxa manpowerka la yiraahdo oo tirada ciidamada dagaal gali kara ee dalkan waa 1,200,000 oo askari.